way kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaad la wadaago xogta iyo wararkii ugu dambeeyay talaabooyinka culus ee dawladda federaalka Soomaaliya u qaaday saaka iyo waliba sidoo kale diyaarado cusub oo horle oo lagu daabulayo deegaanada markaasi ee gobolka Gedo gaar ahaan Baardheere iyo waliba soo kale Garbaharre oo muuqato waqtigan la joogay in dhowr diyaaradood ciidan halkaasi ka degeen iyadoo markaasi qorshaha saxda ah ama waxyaabaha ugu muhiimsan ee hadda halkaasi loo dejinayn aan wali dawladda faahfaahin aysan ka bixinin laakiin waxa saaka aroornimadii hore si weyn markaasi loogu daabulay halkaasi ciidamo aad u fara badan laba diyaaradood ku dhawaadna halkaasi ka degan xogtaasi rabaan halka kugu la wadaago soo dhaw marka hore si shirkare muuqaalka la gareey meel dheerna la gaarsiin haddaad nagu cusub tahay waxaan ka dalbanaynaa inaad nagu soo biirto oo aad ka mid noqoto saaxiibadeena ama soo furo garido oo saaxiibadeena Soomaaliya wararka kan ugu la socda aad qayb ugu haato way soo dhaw saaxiiba gobolka Gedo shalay ilaa maanta waxa si weyn markaasi loogu dejinayaa diyaarado ciidan oo military ah kuwaasi oo kaalin lixaad ka ciyaari doona amniga gobolka Gedo iyada oo dawladda federaalka Soomaaliya maalin dhaweyd markaasi si weyn ugu jabtay ciidamadii faraha badnaa ee ku daabuleysay garoonka Raas Kambooni oo Axmed Madoobe weerar qaawan uu ku soo qaaday taasi oo dhibaato weyn markaasi ciidanka xoogga dalka Soomaaliya soo gaarsay iyo waliba dhaawac aad u culus iyadoo waqtigan la joogay u muuqato isla gobolka Gedo qayb kamid ah in markaasi ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed lagu daabulayo taasi oo waqtigan la joogay aysan haddana u muuqato in mar kale halkaasi ay dagaal kale haddana laga abaabuli doono saacadii ugu dambeeyay sabradan iga dambeeyay u jeedaan ayaa ku yahayaamay ama ku qulqulayay garoonka magaalada waa markaasi gobolka Gedo gaar ahaan Baardheere oo halkaasi si weyn markaasi ciidamadu ay ugu degayaan taasi oo waqtigan la joogay waa ku dhawaade ay gaareen 3 diyaaradood oo ciidanka militariga ee Soomaaliya halkaasi oo la qorsheynaya inay markaasi ay fariisimo weyn ay ku yeelan doonaan ciidamada xoogga dalka ee Soomaaliya waxaana sidoo kale jirta warar kale ee sheegaya kuna aadan in markaasi dawladda federaalka Soomaaliya ay mar kale ay u tafaxeedanayso misna markaasi loolan adag ugu jirto sidii ay ugu taqluusi lahayd ama ay ugu saari lahayd Axmed Madoobe kursiga uu hadda uu ku fadhiyo taasi oo si sharci darro ah uu halkaasi ku joogo inkastoo gobolka Gedo ay qayb ay ka ahayd meelaha sida weyn Axmed Madoobe looga soo horjeeday iyada oo bulshada qaybadeeda kala duwan ba si weyn markaasi u dhaleelayeen xukunka Axmed Madoobe ee isku caanashubay hadda ku jooga deegaanada Jubbaland walow aanan dawladda si rasmi ah maanta u cadeynin ciidamada halkaasi ay ku daabuleyso iyo qorshaha ku aadan ee halkaasi looga dan leeyahay ama markaasi laga qorsheynayo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaana kaalin mar kale lixaad ka geysanayda in gobolka Gedo ay ka dejinayso diyaarado ciidan military ah kuwaasi oo sida lagu sheegay warka ka soo baxay ama markaasi qoraalka laga soo saaray ay kala wareegayeen xarumihii ama fariisimihii ay baneeyeen ciidamada ATMIS oo muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi ka baxayay iyada oo hadda markaasi gacan ku haynta saxda ay markaasi la wareegi doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo waliba sidoo kale ciidanka ee markaasi sida weyn ee markaasi dawladda federaalka Soomaaliya ugu dirayso dhinaca kale waxa jira in markaasi dawladdu ay qorshaheedu ay tahay in markaasi ay rabto in dhan kasta ay Axmed Madoobe ay ka qaban karto ay ka qabato ama markaasi si walba ugu hortay karto inay ugu hortagto xukunka Axmed Madoobe ee ku doonaya halkaasina markaasi uu ku joogo waana talaabo kale culus haddii Axmed Madoobe haddana uu qorsheeyo in dagaal toos ah haddana uu soo qaado ay u fududaan karto inuu yimaado halkaasi maadaama ay inta badan ay fahansan yihiin ciidamada maamulka Jubbaland dhammaan deegaanadaasi ee gobolka Gedo iyo waliba sidoo kale Jubbooyinka hoose inta u dhaxeydaba waana talaabo kale oo mar kale horin karto dagaal taasi oo waqtigan la joogay mudnaanteeda kuwaad aysan lahayn iyada oo wali aan si rasmi ah loogu waasaqaadin wixii ka dhacay Raas Kambooni oo saameynta weyn ku yeeshay dawladda federaalka ee Soomaaliya wixii warar kale ee ka soo kordha daabulaynta waa markaasi daabulada diyaaradaha ciidan ee laga dejinayo Raas Kambooni iyo waliba waa markaasi gobolka Gedo gaar ahaan Baardheere iyo waliba soo kalena waaxigeeda bartanida kugu la wadaagi doona si shirgare muuqaalka oo meel dheerna la gaarsiin aragtina qaybta hoose faallada commentiga ayaad nagu wadaagi kartaan mahadsanidin